wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ay wehelinayaan saraakiil ka socday waddanka Finland oo iyagu la shaqeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta socdaal shaqo ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waxaana wafdigan ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay dhagax dhigeen dugsigii hore ee Bursade ee magaalada Berbera sidoo kalena waxay xadhiga ka jareen dugsiga sare ee degmada Mandera waxaana wafdigani kormeero kala duwan ku soo mareen dugsiyada hoose dhexe iyo sareba ee magaalada Berbera wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ka hadashay dhagax dhigii dugsigaasi ayaa sheegtay in si degdeg ah loo hirgelin doono dhismaha dugsigaasi tilmaamtayna inay mar walba heegan ugu jirto sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa guud ahaanba waxbarashada kala duwan ee Soomaaliland haddii alla yiraahdo 2 week wax ka badan inaanu inagu qaadanayn dhismihiisu in la bilaabo insha Allah waxa weeyaan iskuul weyn oo bartankii magaalada ku yaala oo aad ugu fiicnaanaya ardayda oo garoon leh oo dhul ay la kordhin karo leh oo library hadii la isaado uga sameeya waxaanu ugu dhignayo nidhi isaga waanu hagaajinaynaa dhulka la nagama bixin karo bay mushtari badan baa doonayay inuu iskuulkaas u noqdo ardayda meel ay kubadda ku ciyaaraan meel basketball looga sameeyo meel maamuluhu deganaado meel waxbarashadooda lagu kordhin karo oo looga dhiso dabaqyadii uu ahaan jiray insha Allah waxa iyaguna sidoo kale dhagax dhigaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxayna si wada jir ah u soo dhaweeyeen dhismaha dugsigaasi hore ee Bursade oo ay hirgelinayso hay'adda Microscope oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyagoona u mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyadoo farxadda sanadkan noo dheer ay tahay dhammaan gobolka Saaxil iyadoo sanadkii secondaryyaasha oo gobolka Saaxil ay ka hirgaleen dugsiga sare ee Gooda kii Mandera kii Laasada oo imka la doonay la bilaabo iyo kii Laasciide iyo kii Suuqsada runtii waxaan aad ugu farxayno maanta iskuulkii Bursade waxaan la kulannay iskuulkan iyadoo la doonayay in la dumiyo oo runtii dumintiisuna ay hawl aad u badan ahayd runtii kharashkii lagu dumiyay lagu burburiyay oo ahaa kharash aad runtii u badan waxa laakiin loogu dhabar adeegay oo loogu adkeysay si ardaydeenu ay mustaqbal u yeelato waxbarashadu ay u hana qaato xubno ka socday hay'adda Microscope oo iyadu hirgelinaysa dhismaha dugsigaasi sare ee Bursade iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in si degdeg ah dhismaha dugsigaasi loo hirgelin doono haddii ay beedmo intaasi kadibna waxay wafdigani socdaalo kala duwan ku soo mareen dekedda weyn ee magaalada Berbera iyadoo halkaasina ay warbixino ka siiyeen wafdigaasi ka socday waddanka Finland oo iyagu aad uga helay adeegyada ay bixinayso dekedda caalamiga ee magaalada Berbera خالد حسن نور تلفزيون كمدح بناني بولشا تي في بربرة.